hadda waxaa qadkaasi toos ugu jiro cali aar oo ah agwaankii sameeyey filimkii caanka ahaa ee mirir jecel. cali wuxuu ku sugan yahay magaalada muqdisho. waxaa noo suura gashay inaan waraysi la yeelano. cali kusoo dhawo idaacadda Somali Swiss Nora. aad u mahadsantahay saaxiib idaacadda Somali Swiss Nora. waa ku dhawahay adigana aad iyo aad ku salaamaya. cali waxaad tagtay magaalada muqdisho. waxaan rabaa marka horeyso inaa nooga sheekaysid waxyaabay u tagtay magaalada muqdisho. magaalada muqdisho family ahaan u deganahay, carruurtayda xaaskayga degan, marka ayaga u imaaday. film waxaa jira aan aniga sameeyey oo mirir jecel yidhaahdo, asigana waa keenay maadaama aan meesha imaanayay. marka labaas arrin ugu weynaa oo aan u imid magaalada muqdisho. hore ma u tagi jirtay mase waqti hadda kugu horeysa waa xiliyada dhow? 7 sano intii hadda igu horeysa. hadda kugu horeysa dabcan waqti fog waaye. 7 sano kadib ka waran magaalada muqdisho, waxyaabaad kala kulantay xagga ammaanka bal ka waran? wallahi niyo magaalada horta saa u malaynayo markii hore ma aha. markaan dabcan aan qurbaha joogno dadka cabsi badanana la geliyey, waxaa la dhahaa magaalada saan waaye balaa. laakiin marka ay imaadid waxaa arkaysaa in meel walba ciida joogo, baabuurta caadi iskaga socdaan, dadku caadi iska yahay, shadulka qurxan cid ku dareemaysa aysan jirinin. markaas waxaa kaa fuqaya shoog dadka oo qurbaha jooga ku xiran wuu kaa fuqaya. dadka magaalada maanta hadaa hoteelka deganta ka baxda ama guriga deganta ka baxday ama magaalada marays qof kugu mashquulayo male, cid arkaysa male, cid oo si gaar adiga ku fiirsanaysa male, cid oo maaragtay cabsi ku gelinaysa male. meel kasta isbeys kasta iyo adiga boqolkii tilaababa ciidana taagan. marka ugu yaraato waxaa taagan 4-5 nin oo ciidana taagan 6-7. haddana marka cabaar socotid waxaa taagan 15. haddana cabaar markaa socotid waxaa taagan intii oo kale ciidana. marka way ka duwan tahay aragtida markii aan joogno qurbaha aan ka haysano, way ka duwan tahay markii aan imaadida ay reality tahay. laakiin haddana xoogaa marka si loo fiiriyo cabsidu iska jirtaa oo sometimes qaraxyaa dhaca. hadda aniga intaan joogin 2 qaraxa dhaceen, marka cabsidooduna way iska jirtaa. laakiin lama dhigi karo 100% dadku cabsanaya. mid kale dadka magaalada jooga waxaa moodaa in cabsida aysan aqooninba, dad dhiirigashan oo markii hadda saas hawl u dhacaan qarax u dhacaan isla markiiba wixii waa la bedelaya. hadda gurigii darada qarax ka dhacay markii maanta uu shaqeynaya horaa laga bedelaa, soo isaga horaa laga bedelaa, kuraasta laga soo dhigaa, dadka meesha hore kasii camirayaan, noloshii ala sii wadana. marka waxaa moodaa in dadku ay diyaar u yihiin nolol inay fahmaan, inay diyaar u yihiin inkastoo dhacdadaas ilkaas ka jiraan. laakiin dadka magaalada muqdisho hadda runtii waxaa moodaa inay nolol diyaar u yihiin. aad baa umahadsantaa cali. su-aashaan raba inaan ku weydiiye waxay tahay magaalada muqdisho waxaa lagu dilay dad aad u fara badan oo ah ama dadkaas oo u banaay dad saxaafadda ka shaqey jiray. dabcan waxaa la socdaa inaad tvga qaranka ka shaqey jirtay, tvye kale oo soomaaliya la shaqey jirtay. hadda waxaad leedahay magaalada muqdisho ayaan joogaa, security laan ayaan socdaa, meeshaan rabaa maraya. security horta ninka security laba asagaaba wuxuu isku ifinaya toosh. marka aniga security ma isticmaalo runtii. marka security laan iska socdaa magaalada inkastoo aan socodkaygu san badnayn oo aanan meel la u bixinba, gurigaan deganahay aanan ka bixinin. marmar dhif oo aan meel tegayo maahane. marmarkaasna dhalinyaro unbaa soo soconaa, wax ciidana ma kaxaysto aniga maba ciidan iyo de ayaga laskooda ka baqaabo, qoryaha iyo dadka wataan ka baqaabo. marka in haddana sii kaxaysto dhimi aniga kusii tahay. marka wax ciidana malihi oo dabcan mas-uuliyiinta waaweynaa ciidan dadka caadiga ah iska caadi. waxaa arkaysaa gudoomiye degmo iska nugeynaayo sometimes oo magaalada caadiska maraaya. waxaa arkaysaa wasiiraho oo halbaa wata keligiisa guri soo galaya ama kabaxaya ama wadada iska maraya. arkaysaa taliya ciidana keligiis iska socdo. keligiis waa arkay wax oo aan indhahay ku arkay waayo. taliya dhan oo ciidana keligiis iska socdo oo baabuurkiisa wata magaalada keligiis maraaya. oo markii la istaajiyo sometimes checkpointya jira ciidan baabuurta lagu baaro, la istaajiyo muraayadiisa degsanaayo oo keligiis cadow madow socda. marka noloshu way soo fiicnaanaysaa. qof oo misalan qof walba tiisi gasho horta wuu dhimanaya oo dee lama celin karo. laakiin haddana inta aniga aan joogay inta aniga hadda joogay weliyaa lagu dhaawacay. nin la yidhaahdo Somali Channel agaasimahiisa intaa lagu dhaawacay, runtii ayaa uga xabaxay. waxaa kaloo jira iyadana qaraxii hadda maanta igu dhacayana weliyaa ku dhinteen. laakiin haddana waa qadarta ilaahay dadka uu qora unbaa mar walba la kulma. laakiin magaaladu sida ay u muuqato runtii waxaa moodaa inay 80% oo adigi kara amnigeedu fiican waa iska caadi. cali waan ka gudbay arrinta magaalada muqdisho. hore ayaa waxa u samaysay filimkii caanka ahaa ee mirir jecel. waxaan daawanay qaybtiisii koowaad. qaybtii labaad marka dabcan waxaad kusoo bandhigteen Oslo.
si aan la socdo hadda waxaad u geyseen magaalada muqdisho bal ka waran qaabka aad u samayseen ma lagu faraxsan yahay marka qaabka u socdo macna filimka qayb saxad waxaa jira filimka horta marka dadka xadir ka bixiyo waxay wadaagaan magaca laakiin sheekooyinku sheeko ahaan markii la dhaho sheeko oo sidii musalsalkii oo kale ah oo isla qisadii faarax oo socday oo markaa sheekada qayb ku dhamaatay haddana faarax sii soconaayo ma aha oo saas macna ma sheekadu waxay leedahay bilow way lahayd qaybtii hore waa dhamaynay lafdhabartii inay wadaagaan qaybtii labaad haddana waa bilownay waa dhamaynay lafdhabartii hore weli wadaagaan qaybta saddexaadna lafdhabarkii bay wadaagaan laakiin qaybta saddexaad ay kaga duwan tahay waxaa jilaya actors ka duwan actorska hore sheeko ahaana sheekadu inta hore way ka oogacweynta way ka balaaran tahay waxaa kamid dadka jilaya amina muuse weliye dabcan agaasimaha oo warbaahinta qaranka oo magaalada london dabcan qof saxaafadda intaasina kusoo jirtay ah qof maaragtay very experience ah oo dhanka saxaafadda marka loo fiiriyo ah marka qofka magacaas le waaye ayadaa ku jirta oo dabcan umada soo wada garanaysa waxaa ku jira cabdixafiid waxaa ku jira xuseen shire waxaa ku jira maryan gowle waxaa ku jira qofka la yidhahdo yurub daahir oo riwaayadii looran jiray xasuuqa shacabka xisaaba ka dameysa wax ka gashay waxaa ku jira mustafa daacad oo isla riwaayadaas abwaanka sameeyey inuu yahay afilaayada oo riwaayadana wax ka jiray riwaayado badanna sameeyey dabcan filimka seventy karayna wax ka sameeyey waxaa ku jira oo filimka wax ka jilaya xanaan shidane oo telefishinka qaranka ka shaqeysa waxaa wax ka jilaya naasir yare oo telefishinka reerka ka shaqeeya waxaa wax ka jilaya cabdixafiid oo university dabcan umada soomaaliya wada garanaysa intooda badan waxaa wax ka jilaya aniga waxaa wax ka jilaya xuseen marka loo fiiriyo waxaa ku jirta ilaa iyo 13 qof oo ah dadkii celebrity saxaafadda laga dhex yaqaano marka uu ka duwan yahay sheeko ahaan uu ka duwan yahay qaab ahaan uu ka duwan yahay filim weyn waaye magaalada muqdisho aan kusoo bandhignay habeen jimcihii lasoo dhaafay runtii dadkii daawaday waxay nagu dhiirigelinaa mar labaad ku celina haddana waxaan qorsheynaynaa in jimcaha soo socda ama jimcaha ku xiga aan ku celina mar labaad oo isla meesha ku qaban xilli maalada qaban haddii la hayno oo magaalada lagu qaban doono haddii rabi karaan mar kale marka hal meel lagu daawanaya miya exactly hadda meesha anaga maana weli hoolkii lagu daawan lahaa weli lama go-aamin dabcan hawshaas waxaa u saaray dhalinyaro kalaa ka shaqeynaysa laakiin hoolka weli lama shaacinin laakiin dabcan tviyada iyo waxaa lasoo gelin doonaa idaacadaha magaalada muqdisho marka laba meelood in lagu kala qaban doono iyo in meel lagu qaban doono maaqaan laha cali aar aad baan kugu mahad celinayaa aad iyo aad baa umahadsantaa runtii waa idinka raadinaa boqolkiiba waxaad ka baridana baahiga ma goyse ballanteenu